golaha wakiilada Somaliland ayaa isniinta 22 July fadhi ay yeesheen ku ansixiyay xeerka maydhista lacagta oo muddo horyaalay golahooda. Fadhigan saako ay ka soo xaadireen 44 mudane isla markaana uu shir gudoomiyaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa ansixinta kor xildhibaanada dood adag iyo falanqeyn dheer ay ka yeesheen xeerkan oo ka koobna 750 qodob kaas oo sababay in xildhibaanadu ku kala afkaar duwanaadaan ansixinta xeerkan. Intaasi kadib gudoomiyaha wakiilada ayaa xildhibaanada goobjooga ah ka dalbaday in ay cod gacantaaga u qaadan xeerkan oo ka koobna 750 qodob. waxaana in sidaas lagu ansixiyo u codeeyay 330 mudane halka 5 ay diideen 5 kalena ay ka aamuseen. waxaana gudoomiyaha Baashe Maxamed Faarax uu ku dhawaaqay in sidaas xeerkan uu ansax ku yahay. xeerka ka hortagga maydhitaanka lacagta waxa ansixiyay 330 xildhibaan 5 xildhibaan waa diideen 5 waa ka aamusay. gudoomiyuhu ma codeyn xeerkii saas uu ansax ku yahay. xildhibaan Faarax Cabdulla Dheere oo kamid ah mudanayaashii diidan ansixinta xeerkan maydhista lacagta lana hadlay codka bariga Afrika ayaa sheegay in gabi ahaanba hanaanka loo maray ansixinta xeerkan uu ahaa mid baalmarsan sharciga golaha. sidoo kale shir gudoonka ku eedeeyay in ay doonayaan in ay duuduub ku dhaafiyaan golaha kana dhaga adeegeen in ay tixgeliyaan xildhibaanada dalbada in xeerkan ansixintiisa dib loo dhigo waqtina loo siiyo in ay soo darsaan xeerkan sidoo uu hadalka u dhigay. sidoo kale xildhibaan Dheere ayaa sheegay in golaha guurtida Somaliland ay dhankooda ka cabanayaan hanaanka ay golaha wakiilada u maraan ansixinta xeerarka waxaanu ka deeriyay in xeerkani aanu maraynin golaha guurtida. marka waxaan ku diiday anigu waxa weeye xeerku wuxuu ka hadlayo iyo nidaamkiisa maan diidin laakiin waxaan diidanahay waxa weeye sida wax loo maamulayo ee nimanka shirgudoonka ay u maamulayaan waxay u egyihiin ragan wadanka xilba ka saareen raga aan maxay ixtiraamayn golaha xeeraan ragaan ixtiraamayn maxay ahaytoy sidii goluhu u shaqayn jiray baan anigu u arkaa. waxa weeye waxaan leeyahay sharciga gol xeer hoosaadkiina maba jiro imika golo la isku qabsan lahaa ma jiro way diideen inay soo dhigaan. Xamse Xir Saxid wararka lanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa.